waqtiga noocan oo adag ayaan soo shaqeeyay in badan intii ogtahay waqtigii aan shaqeynayay oo siyaasadda ku dhex jiray oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahaa oo runtii shirkii Djibouti iyo xaaladaha ku shaqeynaynay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa runtii hawsha aan ku jiro dhibsaday dad badanna way ku faraxsanaayeen dad badanna way dhibaysay shaqadaas aan ku jiro marnaba aniga hal habeen kuma fakarin qof bilaadan ku xumay laakiin shaqada markaas shaqo adag gasho dadka qaarna waa kugu jeclaanayaan qaarna waa kaaga hor imaanayaan waxaan ogahay hadda muddadii aan ka soo baxay dad badan oo markaa aan kala fakar duwanayn ama aragti kala iga qabay markaan banaanka isku wareysanay hadda waxaan aad u la yaabaa sida aan dadka aan isugu jecelnahay Soomaaliya maanta ama aan isugu kalsoonahay waa dadkii shalay ay arkay waxaan ka shaqeynay inay saxayn marka waxaan rabaa inaan hadalka waxaan u leeyahay xasan cali khayr waqti uu shaqeynay shaqa adag ayuu qabtay shaqa aad u dhib badan ayuu ku soo hagaagay waqti isbedel run ah oon ognahay ciidamada in la reform lagu sameeyo finance labada qodob ee ugu muhiimsan Soomaaliya ani inta waa yargu waxa weey waa finance-ga ama dhaqaalaha iyo security labadaas qodob qofka reformka raba inuu ku sameeyo aad badan ayuu kala kulmayaa marka dad badan oo Soomaaliyeed oo aniga aan yani ka arko yani xogaa wax ka dareemaya amaba casan waxaan dhihi lahaa ayaan lagu degdegin waxa way qof kasta oo xaaladaas ku jira isbedel ma yimaado 100% in lagu qanaco sugin dadka oo dhan isbedelku dadna waa positive u taabanaya dadna negative u taabanaya marka waxaan dhihi lahaa waa la gudbaya xasan haddu mas'uuliyad buuxa aan ugu sii darayna hadii Ilaahay yiraahdo oo Ilaahay ku guuleeyo waxaan isleeyahay reformkii uu horshal soo sameeyay ama dhinaca amniga ama dhinaca finance-ga hadda ayuu u baahan yahay in hore loo sii wado oo miriheeda lagu guto xogaa yar oo dib u dhaca ku dhacay marka anigu Axmed ahaan iyo runtii waayarnimada aan leeyahay waqtigan aad ayaan u taageersanahay murashaxnimada maaragtay xasan muddana waa taageersanahay waxaan aad u rajeynayaa xildhibaanada halkan fadhiya iyo inta maqanba waxaan idinku boorinayaa inaad doorataan